السلام عليكم. channelkan waxaan soo gelinaa dhulka iibka ah ama dhulka la iibinayo qaybaha kala duwan ama xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa. Sidoo kale waxaan soo gelinaa guryaha iibka ee Janiska ah, sidoo kale guryaha iibka ah ee cusub iyo kuwa qadiimiga ah labadaba. Sidoo kale waxaan soo gelinaa kirada guryaha iibka dhulka. sidoo kale haddii aad u baahan tahay guri aad iibinayso, sidoo kale waan ku soo iibinaa, waan ku soo gelinaa channelka si fududna waan kugu soo iibin doonaa dhul iyo guriba. sidoo kale haddaad u baahan tahay guri kira ah, waxaad ka helaysaa channelkan guriya kira ah oo la kiraynayo. sidoo kale haddii aad u baahan tahay guriya kira oo goglan oo alaabtoodii iyo qalabkoodii wata, sidoo kale insha Allah waad ka heli doontaa. waxaad nagala soo xiriiri doontaa lambarka shaashada ku qoran WhatsApp. haddii aad wadanka gudihiisa joogto waad soo qaraaci kartaa, haddii aad wadanka dibadiisa joogto WhatsApp-ka fariin waad noo reebi kartaa ama waad naga soo qaraaci kartaa. labada siyaaboodba waad samayn kartaa. markay noqoto iibka dhulka, waxaa jirta meelo ay dadku aad iyo aad u jecel yihiin in ay dhulka iibsadaan, sida masallaha oo koonfurta magaalada Hargeysa ah. sidoo kale waxay jecel yihiin bariga magaalada Hargeysa. sidoo kale dadku waxay jecel yihiin galbeedka magaalada Hargeysa oo aad iyo aad ay dadku u jecel yihiin, weliba galbeedka magaalada Hargeysa iyo siiba xaafada loo yaqaano masallaha bari, masallaha galbeed, weliba koonfurta sidoo kale way jecel yihiin. aad iyo aad dadku u raadiyaan meelahaas oo dhan. haddii aad dhul uga baahan tahay, qiimayaal kala duwan ayaa dhulka lagu iibiyaa. sidoo kale ereyada ama meesha dhulka uu yahay, meelaha qaar qiime naasila lagu helaa, meelaha qaar qiime sare ayaa lagu helaa, meelaha qaar waxaa jira meelo ay u dhowdahay wadooyin ama masaajid ama suuq ama meelo oo aduu caan ah oo qaaliyeeya dhulka. ama sidoo kale dhulka laftirkiisa ayaa kala duwan, oo mid uu ku yaala meelo laf ah oo dhagax ah oo guriga waxa u fiican meelaha adag oo dadku aad iyo aad u jecel yihiin, oo hadday noqoto dhaska iyo siigada iyo xilliga abaarta. meelaha dadku lafta ah ee dhagaxa ayay jecel yihiin si uuna guriga ugu dhasaysan oo noqon meel wada ciida oo masaxaad badan iyo dhas badan u soo gelin. meelaha lafta aad iyo aad baa loo jecel yahay, wayna ka sareeyaan ama way ka qaalisan yihiin. meel lamid ah oo ay isku agagaar yihiin oo aan laf aan hayn ama aan dhul adag aan hayn, way ka qaalisan tahay meesha adag. meelaha jilicsan leh waxaa jira meelo qiimahoodu naasil yihiin, iyo sidoo kale meel dhulkeedu jilicsan yahay laakiin qiimaheedu sareeyo, sababtoo ah ama wada halbowlaha u dhow, ama meelo caana u dhow, ama masaajida waaweyn baa u dhow, ama suuqyo waaweyn baa u dhow. iyadoo meeshu ay jilicsan tahay ayaa haddana qaali tahay, ama dad badan ayaa population badan baa meesha ku nool, oo meel jaam ah oo dad badan oo jaar ah ayuu qofkaasi helayaa, bimacnaa waa la degan yahay meeshaas. meelaha basas kale dadku ay raacaan gaadiidka sida baska oo kale, ama meel tagaasi badan tagaan, meelahaasina meelo bilaa gawaadhiya ama bilaa gaadiida. meelahaas dadka ma jecla meelaha bilaa gaadiidka ah, waxay ka doorbidaan ay ka jecel yihiin meelaha leh in wax loo raaco, gaadiid loo raaco sida baska oo kale. xaafadaha populationka badan ku nool yihiin waxay kaga fiican yihiin markasta bas ama tagaasi badan ayaa tagta. marka meeshiyo ay degan yihiin, haddii qofkii uu dhulka iibsado ama guri ka dhisto kale, waxay keenaysaa qofku inuu gaadhi haysto kale. hadduu bilaa gaadhi yahay ma tegi karo meeshii fogeyd, waxay ku qasbaysaa inuu gaadhi iibsado khaas ah, oo hadduu caruur iskuulka dhigato caruurta iskuulka keeno,
haddii uu suuqa kadis ugu baahdo inuu muxuu ahay gaari u baahdo inuu taxi raadiyo. laakiin meelaha dadka badan degan yihiin ee bas kale ee qaaliga ah waxay ku jecel yihiin dadku baskii ay leedahay. markaa qofku lacag yaro jaban ayuu suuqa ku imanaya uu kusoo adeeganaya haddana sidii lacag yaro jaban ayuu ku noqonayaa. marka taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha dhulka lagu iibsado ee lagu jecel yahay. sidoo kale dadka qaar waxay jecel yihiin in ay ka iibsadaan meelo dadka familigooga ay degan yihiin oo familigooga inay u dhawaadaan. ma jecla inay meel kale dad kale ayna gelinayn oo kale dhex degaan. waxay jecel yihiin inay familigooga usoo dhawaadaan si iskugu imaadaan ama meel yaraantoodii ay deganaan jireen in ay degaan haddana oo xasuus ku leh oo ay jecel yihiin in ay ku noolaadaan. dadkaasina way jiraan. imka halkan aynu maran oo kale aynu joognaa waxa weeyaan waqooyiga magaalada Hargeysa xaafadda Shulaac. halkan waxaa jirtay meel aan la deganeyn berigii hore oo imka 3 sano 4 sano ugu dambeysay ayaa aad loo soo degay. halkan oo kale dad badan ayaa naga soo wareysta oo ilaaha halkaas dhul baan uga baahanahay inagu soo raadiya. beri halkan aad bay u jimnaan jirtay lacag badan ma siin jirin. imka wadada Hargeysa bypass oo la dhisay dadkii oo soo degay xaafadiyo bas yeelatay waxyaabo badan ayaa xaafadii kusoo kordhay oo isbedel weyn ayaa ku yimid. waxayna leedahay meelo laf ah oo dhagaxa iyo meelo ciidaba intaba way leedahay. marka dadku badanaa waxay jecel yihiin meesha lafta ah. laakiin meeshan imika waa meel dad badan degan yihiin laf iyo laf la-aanba. waa meel qaali noqotay. marka halkan oo kale nusbaloorka 12 iyo 18 mitir dhinacna 12 dhinacna 18 ah waxaa lagu iibiyaa meelaha qaar way kala duwan yihiin. qof waa nasiibkii. meelaha qaar baa chance lagu iibinaya qofkii lahaa degdeg u iibinaya. meelaha qaar baa wadda u dhow aad u qaaliya. marka meelaha iska caadiga ah wadada u dhoweyn waxaa la siiyaa 17 20 23 25 meelaha qaar 26 adigu waa 18 17 ilaa inta u dhaxaysa 25 26 meelaha u dhaxaysa. marka halkan oo kale haddaad dhul uga baahan tahay oo ka doonayso inaad dhulkaaga soo iibiyo lambarka shaashada ku yaala ayaad ama WhatsApp ka shaashada saaran labadaba call iyo WhatsApp labadaba naga helaysaa. sidoo kale haddaad u baahan tahay guriyo iibo oo si qurux badan loo dhisay waad naga helaysaa. qaarkood waan soo gelin doonaa waad daawan doontaa. guriyo kale oo gogna haddaad u baahan tahay waad naga helaysaa. qaarkood waan soo gelin doonaa insha Allah. sidoo kale guriyo kale haddaad u baahan tahay dhul lagu iibinayo dhul adiga laga iibinayo dhul adigu aad haysidoo lagu iibinayo si dhaqso ah. guri aad leedahay doonaysid iibisi si dhaqso ah. guri hadda doonaysid si dhaqso lagu soo iibiyo. dhammaan waxyaabahaas oo kale waad nagala soo xiriiri kartaa hadda adeegyo gaar ah u baahan tahay. asxaabta aad iyo aad baan salaamayaa.